sanado badan oo ay shacabku ku nool magaalada Lagboqol ee koonfurta Wajeer ku noolayeen koronto la'aan iyagoo ku tiirsanaa leerarka cadceedda matoorada iyo shidaalka maanta waxa uu bilowday bog cusub kadib markii koronto si rasmi ah loo gaarsiiyay magaalada Lagboqol mashruucu hormuud ka ahaa xildhibaanka koonfurta Wajeer Maxamed Cadow ma hadda waxaan u celinaynaa Maxamed Cadow September uu noo keenay oo waligaan aan sugayno waligaan magaalada kama aan sugayno inaan September ka helno September uu noo keenay magaalada in light adduun ay leedahay fariishi adduun baan gadanay waan noolaanay Maxamed Cadow u mahad celinayaa nalka faa'iido badan uu keenay magaalada mugdi bay ahayd beecsharo fiican kama jirin dadka fariishi ma haysanin ruux waa fariishaastay hadda markuu September ka maadin wal fariisu soo gatay faa'iido badan buu noo keenay waan ku raysanay magaalada light noo yeelatay beecsharo adduun bay noo yeelatay waan ku noolaanay mahad baan u celinaynaa 19 waxaa la degay 89 ilaa hadda taagnadan taagnay 2026 nal may haysan solar bal isticmaalay iyo waxyaalo kale oo daylight waxyaalahaas la isticmaalay laakiin hadda alxamdulillah waa nal baan helnay shaqada nimankii qaybta hor qabteen si fiican ay u qabteen guri kasta waa la gaarsiiyay hatta kodkoto Allah ka dhiga yootay waxa dhan si fiican ay u gaarsiiyeen naluna waxa ka soo shaqeeyay miiga Wajeer South Cadow arintaas aan ku mahadinaynaa waan ku sii bogaadinaynaa in wax kale ka muhiimsan oo noo qabta sida waraha oo kale waraha anaga xun oo maaragtay inay oo geed cali garob la dhaxal wareegay geedaas in looga guro waraha nayto xabad omega dam in looga dhigo codsigaana waan ku darsanaynaa laakiin waa xabadan uu noo qabtay helitaanka korontada ayaa farxad weyn gelisay shacabka magaalada Lagboqol kuwaas oo sheegay in ay muddo dheer sugayeen adeegan muhiimka ah dadka deegaanka waxay aaminsan yihiin in korontadu aysan ahayn oo kaliya iftiin balse ay tahay talaabo horseedaysa horumar iyo nolol wanaagsan ganacsatada ayaa sheegay in korontadu ay u sahli doonto inay dheereeyaan saacadaha ganacsiga yareeyaan kharashaadka isla markaana balaariyaan adeegyada ay bixiyaan sidoo kale bulshadu ayaa rajo ka muujisay in iskuulada iyo xarumaha caafimaadku ay heli doonaan adeeg koronto oo joogto ah taas oo sare u qaadi karta adeegyada ay bulshada siiyaan maqaayadan ka shaqeeya ganacsataan yahay maxaa la jir steamer waxyaalo fara badan aan ku faa'iidnay alxamdulillah imbigayna mahad u celinaynaa maanta waa uu ku mahadsan yahay horumar badan aan gaarnay alxamdulillah ilaahay mahad iskale xilwaanyo badan wayna soo mareen haddana maanta ayaan guusha gaarnay dib fara badan aan qabnay biilaana ahayn steamer laana ahayn guushaas oo dhan waxaa noo keenay imbigayna Wajeer South Maxamed Cadow faa'iidada badan ay keentay koronto waxa kamid ah dadka beecshada sida dukaamaha iyo bujaraha waxay u keentay faa'iido fara badan hilibka uu iska halaaba jiray daqiiqada gudahood markuu wax yar yaala 4 saac markuu gaaro oo subaxnimo uu halaab jiray haddana ilaa habeenkii ilaa subax kale uu gaari karaa taa waa faa'iido weyn oo ay keentay dadka timaha iskale iyo dukaamaha iyo maqaayadaha ayadana faa'iido badan bay u keentay taasoo wajihii uu keenay biyihii dadka ay ku gataan aanay kala jiray kala weyn faa'iidooyinka wax la xisaabi kara ma faa'iidooyin fara badan bay keeneen iyo ka keentay korontada waxaan madalinayaa rag keenay oo baarlamaanka kamid ah sida Maxamed Cadow oo keenay sidoo baaqasay sistem ma soo madalina maadaama ku koriyay keen waayeen walama badan ay qaadeen haddana nimankii ku guuleysteen keeneen kuwaas aan hadda celinay magaalada in la 40 sano sistem raamay si loo aasasay sistem maad sistem ay jamal kii soo galana balana buuqa jiro sistem aan geeyay ugu dhigay marka uu nabad ku guuleysteen sistem ay magaalada heshay ducaadan Cabdi Cawaale magaalada Lagboqol dib badan ku qabnay sistem la'aan telefoonii baadiyaan ka soo qaadnaa 4 bari 5 bari iska dansanaan jiray ilaahay mahad leh haddaan ku qeyr qabnaa mana tago si toos u jooga markan oo mahadinayna dadka keen iyo kasko ilaahay markan sistem faa'iido badan ku qabnaa waxaan noo keeninba malaha telefoonihii firinjeerkii la wala tuuray hadda la soo celi iyadoo nalalkii korontadu ay markii ugu horeysay ka ifayaan Lagboqol shacabka ayaa rajo weyn ka qaba in tani ay bilow u noqoto horumar balaaran iyo fursado cusub oo u soo hoyda magaalada Lagboqol magaaladan way oomaneed garjan baa la garaangarin jiray biyo dhanaan lugta ku soo garaangarsan jiray maantana guri hortiisan biyo ka dhaansanaynaa intaas soo sanay biyo ay oomaneed oo hadda garjana helay laga soo garaangarin jiray
yaa laga soo qaadi jiray waxa lagu soo tareelaa dabada loo soo guri jiray oo la keeni jiray meeshan gabdhaha ay wiilashay uun garta biyo u qaadayeen bay ku dirix nooga dhacay meeshii aan ku soo marnay taariikhdaas maanta guriga hortiisa aan biyo ka dhaansanaynaa ma hadda waxaan u celinaynaa maxamed cadow